madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud siilaanyo ayaa ka hadlay geeridii ku timid hogaamiyihii dalka Koonfur Afrika Nelson Mandela oo isagoo da'diisu tahay 95 jir xalay ku geeriyooday gurigiisa oo ku yaala magaalada Johannesburg ee cariga dalkaasi Koonfur Afrika. madaxweynaha oo arinta ka hadlayana waxa uu yiri Nelson Mandela wuxuu ahaa shakhsiyad aad iyo aad weyn qaarada Afrika dunida dhan ku weyn buu ahaa magaciisa maamuus ku yeeshay weyn buu ahaa. South Africa waa meel dad midabta koor uu weyn ka jiray kaasoo saameyn weyn ku lahaa caalamka iyo qaarada Afrika oo dhan. dadkii sabarka u yeeshay xaliyay dunida ku maamustay magac ku yeeshay isfahanka dunida iyo isfahanka cadaankii madowga u noqday masal ayuu ahaa. marka waxaan leenahay nin lagu daydo ayuu ahaa. waxaan leenahay nin xusuus loo yeesho wanaagsan buu ahaa. qoyskiisa iyo tacsida waxaan leenahay sabariya manaadi ka sii ayaanu leenahay iyo dunida dhanba ninkaasi magac caalami buu ahaa. marka dunida iyo xayskiisa iyo qoyskiisa iyo wixii wuxuu ahaa oo dhan waana nin aad iyo aad in loogu dayda aynu u baahanahay oo dunida meelihii xaliyay ay ka jirto dhibaatooyin badan oo noocaas oo kale oo dhan loo baahan yahay in masalkiisa marba la xusuusto oo la soo qaato oo lagu daydo u baahan buu